way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago macluumaad toddobaad ka hor aan halkan idinku la wadaagay sawirka iga dambeeyay sidaad ugu jeedaan waa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo toddobaad ka hor sheekadiisa halkan aan ku baahinay oo aan cadeynay mowqifkiisa ku aadanaa ee ahaa in uu si weyn u taageerayo hadafkiisu ugu weyn uu yahay inuu kala dhantaalo Soomaalida u taagan inay markaas difaacaan dalkooda misana sida weyn ugu soo horjeeda Etoobiyaanka iyo waliba sidoo kale kalkaalidooda xogtan ayaa rabaa in halkan kugu faahfaahiyo haddii ay tahay markii ugu horreysay ku soo gaaray muuqaal fadlan oo like garow share gare meel dheer nala gaarsii boggan haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad aragto fadlan soo raac kana mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha ee wararkeena ula socda qoraalkan aad u jeedaan ayuuna bartiisa facebookana ku qoray dhammaan warbaahinta noocyada kala duwan maanta si weyn ay u isticmaalayaan iyadoona markaasi lagu sheegay in markaasi si weyn ugu ololeynayo xisbiga Abiy Ahmed iyo waliba sidoo kale taageero weyn oo u muujinayo sidii wax ugu la qaban lahaa in markaasi Ethiopia ay hesho dekad misane biyo badeed oo ay markaasi rabto in ay Soomaaliya mid kamid ah ay markaasi ka saxiixato markaan baahinay sheekadan kadib falcelin fara badan ayaa inooga imaaday oo ahaa in markaasi cadeema oo aan markaasi aan soo bandhigin laakiin aragtida iyo mowqifka qofka marka uu taageero qof uu taageerayo la cabiri karo misana la qiyaasi karo ama ujeedkiisu la sheegi karo halka uu markaasi u cad ayaana ahaa cadeemaha aan wadnay laakiinse waxaan sugnaaba maanta ayay soo baxday oo ah in uu si weyn ama si cad u taageerayo iyadoona markaasi u muuqato waqtigan la joogay in uu markaasi ay u kala cadaatay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan in markaasi dadka ku dhaqan halkaasi ay si weyn markaasi ogaadeen hadafka siyaasiga iyo waliba sidoo kale damciisa ku aadan inuu si weyn ugu ololeynayo dawladda Ethiopia gaar ahaan xisbiga Abiy Ahmed run ahaantii waxa si weyn ugu soo horjeeday shirka ay ku sheegeen wada tashiga qaran ee dawladda Ethiopia xisbiga ONLF ayaa dhankooda sheegay in ay markaasi sinna u taageereenin misana aan u tagaynin in ay taageeraan misana ay u muujiyaan misana ay garab istaagaan xisbiga Mustafa Cagjar iyagoo markaasi ku tilmaamay in ay tahay in wax laga xumaado ay yihiin waxa uu wada Mustafa Cagjar laakiin waxa talaabada uu qaaday oo ahayd in dad odayaal ah iyo waliba dhalinyaro dumar ay u badan yihiin in uu soo kaxeeyay kadibna markaasi ergooyin ay u noqdeen shirkana si weyn ugu ololeynayeen laakiin sawirada iyo waliba muuqaalada laga soo duubay ay u muuqdeen in markaasi aysan ku qanacsaneen misana aragtidooda aysan ahayn in ay markaasi wax ay rabaan laakiin waa ay dareemi karaan bulshada iyo waliba sidoo kale halka u cad mowqifka siyaasiga iyo waliba sidoo kale in uu rabo kala dhantaalida Soomaalida ku nool halkaasi ayayna markaasi inta badan ku sheegayeen oo ONLF iyagoona markaasi u muujinay misana wacd ay ku mareen in aanan ka qayb galaynin shirka markaasi uu hogaaminayay misana ergooyinka ee uu isaga markaasi uu soo xulay ugu qayb galay shirkaasi kana dhaciday magaalada dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan Jigjiga run ahaantii bulshada ku dhaqan deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan oo la dhacsanaa arrintan markaan baahinay kadibna waba sida idan muuqato oo ah inuu markaasi si weyn markaasi u sheegay in qofkii ka soo horjeedana markaasi la dili doono ama la dhibaateyn doono haddaba aragtidaada muddo intee leeg ayay ku qaadan doontaa Soomaalida in sidan oo kale loo kala dhantaalo kadibna ay u eegtaan ama ay u arkaan ama indhahooda ay ku arkaan taasi oo u keeni karta sumcad xumatii ugu xumayd abi faallada hoose comment-ka nagu wadaag soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaad la wadaago xogta sawirkan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo waliba sidoo kale macluumaadkiisa oo toddobaad hore aan halkan idinku la wadaagnay oo ahaa oo ama markaasi uu cadeeyay ay ahayd inuu markaasi si weyn u taageerayo Soomaaliduna rabo inuu kala dhantaalo haddaba warkiina hore u baahinay ayaa maanta sax noqday misana markaasi si weyn u soo ambabaxay mis u soo muuqday